هدي الجروبان شغالها ويني شغالها ويني هدي الجروبان شغالها كورن ويني diiwaangelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa diiwaangelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadinka leh waxay damiinata حقيسة دستورية حقيسة دستورية dalkiisa muwaadinka leh waxay u damiinata حقيسة دستورية هوي حقيسة دستورية رشدا waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa daraaraha doorashada waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa dhammaan diiwaangelin baa jirte goobaha u dareera oo danaha qaranka iyo bulshada dulqaad kaga qayb galo wanaaga daayicina dadkaygow dhammaan diiwaangelin baa jirte goobaha u dareera oo maanta ay taariikhdu tahay 26 bisha 12aad 2020 waxaa halka ka ambabaxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo waxaan u sheegaynaa bulshaweynta ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020 waxaan aad u dhiirigelinaynaa dadku in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo si uu u guto xuquuqdiisii muwaadinimo waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban 3 degmood degmada Burco degmada Oodweyne degmada Buuhoodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool dhammaantood bulshada ku nool inay arrinka u diyaar garoobaan inay shaqaalaha ka shaqaynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto in nabadgelyada la ilaaliyo in waa la tartamayaa cid kasta berito waxa la oranayaa meel hebla sidaasay ahayd maanta yaan laga helin maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu ka lumin cod baa lagu tartamayaa deegaan kasta waxa la ogaanayaa tiradiisa qof kasta waxaan ka rajaynaynaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan uga digeennaa dadkii hore isu diiwaangeliyey lama diiwaangelinayo 3 qolo baa la diiwaangelinayaa dadkii qaan gaaray dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii 2 joor iyo wixii ka badan ku celceliyey intaasaa isdiiwaangelinaya iminka khayr baan idin rajaynaynaa maanta waad aragtaan sida loo heeganka yahay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ciidanka u heegan hadday yihiin ciidanka booliiska iyo qaybo ka mid ah ciidanka qarankaba ee militariga
oo dhammaantood ka wada qayb qaadan doona sugidda nabadgelyada. maanta sidaa uu u sheegay maxamuud waxa bilaabantay kulleeto hawlgalkii diiwaangelinta waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada ilaa iminkana wax dhibaato ah oo ammaanka wax u yeela ku ah ma jiro. waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka hawlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan ummadooda oo si fiican u soo dhaweeyaan, inay ku xisaabtamaan ama ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta amba sida nidaamka ay u sheegeen mas'uuliyiinta hogaaminaysa ka socda komishinka qaranka oo aad ugu mahad celinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas'uuliyadda isaga xil saareen iyo hawsha adagay u adkaysanayaan anigoo u mahad celinaya. waxaan ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee qaranka ee nala hawlgalay oo aad ugu mahad celinayo waxaan u sheegayaa inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan shuruucda u taalla eenu u sheegnay inay ilaaliyaan dadkooda isdiiwaangelinayana inay soo dhoweeyaan oo ay gacan qabow tusaan baan hawada u marinayaa ama aan ku dardaarayaa. insha allahu bidmillaahi kani ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ammaanku iyo nabadgelyadu inoogu dhammaanto si wanaagsan. annaguna heegan baanu u nahay oo waannu iska xil saari doonnaa aniga ciidan weynaha ka hawlgeli doona goobaha diiwaangelintaba. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo gobolka togdheer aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidaa ciidanka booliiska iyo saraakiishuba ay soo hawlgaleen. insha allahu bidmillaahi kani waxaan mar labaad u mahad celinayaa mas'uuliyiinta ka socota komishinka qaranka oo aan leeyahay waxay muujiyeen mas'uuliyad qaali ah. dadkaygow dhammaan diiwaangelin baa jirte goobaha u daareera oo danaha qaranka iyo bulshada dulqaad kaga qayb galo wanaaga daayicina. dadkaygow dhammaan diiwaangelin baa jirte goobaha u daareera oo danaha qaranka iyo bulshada